reer Somaliland la gudboon mar haddaynu aragno wejiga maanta ka muuqda Soomaaliya maamulka ka u taliya oo ah mid ay ku dheehantay cadaawad iyo muxuu ahaayay ismuquunin la isku muquuniyo xoog iyo xeelad oo ka duwan habkii inagu haddaynu nahay reer Somaliland shacab iyo dawlad baan ku talagalnay maamulka Soomaaliya wuxuu wadaa diyaar garow ballaaran oo ciidan oo maamulka Soomaaliya ay wadaan iyagoo gacan ka helaya dawladda laba saddex oo ay ka mid yihiin ay u horeyso dawladda Qatar oo ballan qaaday Soomaaliya inay u dhisto ciidan ballaaran oo ilaaliya waxay ugu yeedhaan midnimada Soomaaliya arrintaas oo anigu aan arko inay ku kalifayso Qatar xiriirka wanaagsan ee aynu la leenahay dawladda Imaaraadka aynu saaxiibkan aynu jaarka nahay iyo dawladda Sacuudiga oo xiriir wanaagsan ka dhaxeeyo innaga iyo labada dawladood iyagana xurgufi ka dhaxayso ayaad moodaa cadaawadda ay u qabaan labada dawladood inay ku kalifayso dawladda Qatar oo og dhibka inaga dhaxeeyay inaga Soomaaliya inay bareerka inta leeg ay muujisay maamulka Soomaaliya wuxuu qaaday dagaal siyaasadeed oo ay doonayaan inay caalamka u muujiyaan inay Somaliland ka mid tahay Soomaaliya oo been ah oo aan waxba ka jirin waxaana ugu dambeeyay talaabooyinkii cadawtinimada ay qaadeen tii ay kula kaceen safarkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Muuse Biixi uu ku tagay Guinea kuwii ka horeeyay uu ku tagay Ethiopia kuwii ka horeeyay uu ku tagay Imaaraadka Djibouti ee sida wanaagsan ixtiraamka loogu soo dhaweeyay iyadoo lagu soo dhaweynayo calanka iyo magaca jiritaanka ummadda reer Somaliland iyagoo ka xun inay qaadeen talaabooyin ay qarsan kari waayeen oo runtii la yaab leh oo inta badan ummadda reer Somaliland ka qarsoonayd in cadaawadda intaa leeg ay noo hayaan maamulkaas war dadkii la dilay waxaan reer Somaliland dadkii midnimada lagu dhacay waxaan reer Somaliland dadka muxuu ahaayay dhibaatada 30 sano loo geystay waxa ay horumar la'aanta waxa Somaliland waxa la yaab leh halkii reer Somaliland ay cadaawad u muujin lahaayeen fool xun iyo argoosi Soomaaliya ama maamulka Soomaaliya inay maanta kuwii waxa sameeyay ee bombardiga ku sameeyay ee duqeeyay shacabka inta leeg ee barakiciyay ee burburiyay hantidoodii iyo naftoodiiba inay wali la daba taagan yihiin dhibaatada inta leeg oo kuwii waxa loo geystay reer Somaliland ay maalin walba leeyihiin la soo taagan walaalaha iyo Soomaaliya waxaan doonaa si wanaagsan iyo walaaltinimo kala baxno arrimahaas waa mucjiso la yaab leh taariikhdaas ka jawaabi doonta iyo waqtiga dhow insha Allah waxaan ummadda reer Somaliland u soo jeedinayaa inay u diyaar garoobaan sidii ay wax la isaga celin lahaa sidii aynu u diidi lahayn muxuu aynu uga hortagin cadaawadda ay nagu wadaan waxaan labaadan u soo jeedinayaa ummadda reer Somaliland inay meel uga soo wada jeestaan oo ay gacmaha isqabsadaan sidii ay isaga difaaci lahaayeen cadowga ku soo wajahan ee maanta aan caadna saarayn qof walibana halkii uu taagnaa